tuugnimadu waa mid ka mid ah waxyaabaha muxaramka ku ah ama aan ku bannaanayn shareecadeenna suuban ee islaamka. haddana waxaa jira sidaa oo ay tahay dad geysta. haddaba si kasta ha ahaatee, maanta waxaan idiin soo ururinay tuugnimadii ugu yaabka badnayd oo ay dad samaynayaan iyagoo kaamiradu ay duubaysay markay tuugnimada samaynayeen. haddaba ina keena oo aan wada daawanno muuqaaladan xiisaha badan. laakiin intaanan u gelin ka hor daawadaha qiimaha badanow, fadlan taabo badhanka like si ay inoogu noqoto dhiirigelin xaggiinna inooga timid. u fiirsa ninkani waxa uu samaynayo. shayga yar ayuu dhigayaa gaariga gadaashiisa. marwadu waa ay soo degaysaa iyadoo doonaysa inay iska wareejiso, kadibna wuxuu xadayaa boorsadeeda yar ee saaran gaariga, wuuna la baxsanayaa iyadoo cidna aanay ogaan. gabadhani markay doonaysay inay kuusha tijaabiso, waxay u oroday dhanka miraayadda iyadoo doonaysa inay eegto inay ku hagaagsan tahay in kale. laakiin gabadhii wax laga iibsanayay waxay moodaysay in gabadhu ay baxsanayso, sida aniguba aan u maleeyay horraantii. waxayna ka soo dhaadhacday dhanka miraayadda iyadoo doonaysa inay qabato hadday baxsasho isku daydo. wiilkani iyo gabadhu waxa ay soo galeen halka dahabka iyo lagu iibiyo waxyaabaha qaaliga ah, waxayna iska dhigayeen dad doonaya markaa inay wax iibsadaan, laakiin gabadhu waxay qorshaynaysay inay wax xaddo. dhab ahaantii waa mid ka mid ah tuugada waaweyn ee aadka xariifyada u ah. halkan waxaan ku arki karnaa reer dhan oo kaamil ah oo ka wada qayb qaadanaya sidii ay dhalo derbi ku dheggan ama tv ama telefishin ay u wada xadi lahaayeen dhammaantood. waxaad mooddaa in gurigooda aad looga jecel yahay dhalada, sidoo kalena aanay haysan wixii ay ku iibsan lahaayeen. sidaa daraaddeed waxay door bideen inay halkani ka xadaan. gaar ahaan camaliyaddaasi waxaa fulinaya odayga reerka. laakiin waxaa isweydiin mudan, odaygani sidee buu ku dayasho ugu noqon doonaa ilmaha uu dhali doono? dhab ahaantii waa arrin la yaab leh. labadani tuug waxay isku dayayeen inay xadaan haadka gaariga ama muraayad haadka gaariga, iyagoo doonaya inay gaariga ka soo jaraan, sidoo kalena ay la baxsadaan. laakiin meesha qof xaaladooda la socda ayaa taagnaa, wuxuuna qabtay ilbiriqsigii munaasibka ahaa ka hor inta aanay baxsan. ninkani wuxuu ku andacooday inuu iibsanayo shaygan uu gacanta ku hayo, sidoo kalena uu doonayo inuu si dhab ah u gato. laakiin markii uu gacanta ku dhigay waa uu la baxsaday, kadibna waxa uu raacay asxaabtiisa oo bannaanka u taagnayd. tani waa mid ka mid ah tuugnimada noocyada ugu yaabka badan, iyadoo raggani ay isku dayeen inay xadaan neefkan lo'da ah. arrinku marka hore wuxuu u muuqday mid aad u adag, laakiin ugu dambayntii waa ay sameeyeen, wayna la tageen lo'dii oo gaariga ayay ku xaraysteen, sidaa ayayna ku qaateen. wiilkani wuxuu dadaal iyo halgan ugu jiraa sidii uu u xadi lahaa haadka gaariga. markii hore waa uu ku guulaysan waayey, mar kale ayuu u soo noqday, ugu dambaynna meeshii ayuu ka fujiyey oo uu la baxsaday. dhaladan derbiga ku dheggan iyo dhalintan labada ah ee tuugada ah, dhibaatada haysata bal daawo. dhab ahaantii dadaalka ay ku bixinayaan, juhdiga uga baxaya, xoogga ay u adeegsanayaan markaad eegto, waxaad odhanaysaa kuwani waa kuwo aad u nasiib xun, sababtoo ah xooggoodii, maskaxdoodii iyo garaadkoodiiba waxay ku bixinayaan shay aan u wanaagsanayn naftooda iyo mustaqbalkoodaba. ninkani aad buu uga faa'iidaystay ilbiriqsigii yaraa ee uu haystay. inta aanu albaabku xirmin ayuu gabadha teleefoonkeeda dafay, kadibna kala baxsaday. raggaanna ila daawo, daqiiqda ama burka ayay waxay ka xadayaan gaariga oo socda iyadoo cidna aanay dareemin, laakiin waxay moog yihiin in gadaal kaamira lagala socdo, sidoo kalena la duubayo waxa ay samaynayaan. tanina waa tuugnimo tii ugu yaabka badnayd, bal raggan fiiri naftooda khatarta u gelinaya inay xadaan gaarigan soconaya, iyagoo doonaya inay arrinkaa fuliyaan iyadoo cidna aanay ogayn, laakiin kaamirada ayaa duubaysay, ficilkoodana waa lala socday. marwadani halkan ayay gaariga dhigatay oo ajabka ah, waxayna rabtaa inay gaariga shidaal ku shubato. laakiin ninkan kale wuxuu ka soo degay gaariga kale isagoo markaa xaday boorsadii yareed ee lacagta ugu jirtay marwada. intaa kadibna iyadoo aan la dareemin oo marwadii ay ku mashquulsan tahay tubada shidaalka, ayuu halkii isaga baxsaday. muuqaalkanna ila daawada, waa muuqaal aamusan. waxaa la idinka rabaa inaad sheegtaan waxa dhacay.
u fiirso falaaraha la bixinayo iyo sidoo kale lacagaha la isku dhiibayo. markan adinka ayaan idin deynaynaa inaad soo saartaan qofka wax xadaya iyo kan la khiyaanay iyo kan wax khiyaanayaba.